jawaabtu waxaa loo baahan yahay dadkuna inay ogaadaan idinkuna aad caddaysaan shalay kursi xildhibaannimaad u diidanayeen maanta kursi wasiiraad kula dhegantihiin ujeeddada qarsoon ayaan rabaa horta dadka soomaaliyeed inaan u iftiimiyo mursada wuxuu ku haysta xasan macallin aan doonayaa inaan dadka uu shaaca uga qaado sababta dhegdheer iyo qayre ay dhinac uga ordayaan oo ay leeyihiin suurtagal maaha xasan wasiir noqon maayo waa wax u baahan dadku inay wax badan ka ogaadaan waxaana doonayaa inaan barnaamijka ku iftiimiyo hadduu alla idmo waxaan arkay warqad raaligelin masar ku socota oo cabdikariin cali kaar afhayeenka madaxtooyada uu soo dhigay ciwaan twitterka uu ku leeyahay oo isaga qaas u ah warqadaas ma dhihi karnaa dowladda soomaaliya ayaa raaligelin siisay masar waa jawaab u baahan in la maqlo la ogaado la fahmo waxaan kusoo gudbin doonaa warbixin jawaab oo arrintaasi aan anigu uga hadli doono kuna iftiimi doono waxyaabo badan oo warqadaasi ku dhex jira oo iftiimid u baahan barnaamijka ayaan shaaca uga qaadi doonaa hadduu alla idmo madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu qaatay go-aan ah in uu golaha shacabka baarlamanka maamul ula kulmo puntland galmudug koonfur galbeed hirshabelle jubbaland qaab noocaas ah haddaba ujeeddada sababta madaxweynaha uu gooni ula kulmayo golaha shacabka maxay yihiin muxuu madaxweynaha kala hadlayaa golaha shacabka waa warbixin aan uga hadlayo arrintaasi hadduu alla idmo sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa xalay madaxweynaha waxaa la ballansanaa xildhibaanada galmudug ka soo jeeda kulankaasi ma dhacay haddii una dhicinna maxaa dhacay oo kulankaasi dib loogu dhigay sababta muuqata maxay ahayd warbixin aan uga hadlayo kulankii galmudug xildhibaanadooda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaan barnaamijka ku iftiimi doonaa qodobada iyo qodobo kaloo xiisa leh ayaad barnaamijka ku maqli doontaan soo dhawaada murusada warkiina caddeeya maxaad ku haysataan xasan macallin maxaad ku haysataan jawaab muhiim ah ayaa arrintaa ku jirta oo u baahan dadkaygu inay wax badan ka ogaadaan sababta murusada wiilkooda xasan macallin ay u cayrsanayaan ayaan rabaa inaan barnaamijka ku iftiimiyo kuna soo bandhigo hadduu alla idmo balse intaanan sheekada xasan macallin iyo turkiisa aanan u gudagelin cabdikariin cali kaar iyo qoraal uu soo qoray ayaan doonayaa inaan turxameeyo cabdikariin cali kaar twitterka ciwaan uu ku leeyahay waa afhayeenka madaxtooyada wuxuu kusoo qoray warqad u muuqata raaligelin oo uu ku xusayo jawaabtii su-aashii ahayd madaxweynaha soomaaliya markuu masar tegay arrinta webiga niil iyuu kala hadlay madaxweynaha dalka masar maalintaas gaashaanku ku dhuftay waa diiday laakiin warqadan waxaa ku xusan inuu maalintaasi hadalkiisa aynan ahayn diidmo oo si kale loo qaatay sidaa darteed ay wax ka jiraan arrintii suuqa ku jirtay waagaas hadalkaas hadal weyn waay dowladda raaligelin ka bixisay laguma degdegi karo maxaan anigu marka go-aansaday inaan sugo oo aan noqdo qofka labaad ee runta sheeg warqadda cabdikariin cali kaar maxay tahay ma tahay warqad dowladeed mase waa warqad shaksi uu iska qoray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ma ku seexay warqadda hoosteeda magaca ku qoran ma madaxweynaha mise waa afhayeenka madaxtooyada waa arrin aan rabo inaan iftiimiyo dul istaago welibana aan aad u kala dhigdhigo dadkayguna ay wax badan ka ogaadaan horta cabdikariin cali kaar qoraalkiisa raaligelinta ma dhihi karno qoraal dowladeed mana ku tilmaami karno dowladda masar raaligelisay sababtuna waa idin soo koobayaan warqadda cabdikariin cali kaar laguma daabicin pageka facebook ee filka soomaaliya laguma sheegin telefishinka qaranka mana lagu daabicin pageka internetka uu ku leeyahay telefishinka qaranka lagama sheegin radio muqdisho mana lagu daabicin pageka uu ku leeyahay facebook radio muqdisho madaxweynaha kuma saxiixin warqad marka uu ku seexan yahay afhayeen